qisada heesta ammaanada Ilaahay. Heestan waxa curiyay Abwaan Xuseen oo Faarax Dubad sanadku markuu ahaa 1964. sidoo kale heestan waxa laxanka cajiibka ku laray Maxamed Salebaan Tubeec. heestan oo ujeedadeedu tahay gardhigasho, duco iyo xog waran ku saabsan sida koonka Ilaahiga u dhisan yahay iyo xiriirka ka dhaxayn kara habdhaqanka insaanka dunida guudkeeda. abwaanku waxa uu heestan iyo heesa la mid ah u curiyay xaaskiisii Faadumo Xaashi Nuur sanadkii 1959. Faadumo waxay ka mid ahayd koox fanaaniin oo abwaanka la socday oo sanado badan ay is yaqaanaan magaalada Muqdishona imaaday. Xuseen iyo kooxdu waxay wadeen riwaayadii 60ka waxayna keeneen magaalada Muqdisho. ujeedada ugu weyn ayaa lagu tilmaamaa inay Faadumo ahayd si ay u barato hab nololeedka gabdhaha reer Muqdisho iyo sida ay waxbarashada u jecel yihiin. abwaanka oo Faadumo aad u jeclaa ayaa u keenay inay ku dayato gabdhahaasi magaalada Muqdisho. Faadumo waxa markii dambe waxbarasho uu abwaanku ugu diray wadanka Masar si ay u soo barato kabanka iyo organka. kadib markii ay soo dhameysay waxa ay shaqo ka bilowday Radio Muqdisho ayada iyo fanaaniin kale waxa ay isla furteen iskuul lagu barto kabanka. laakiin caqabadaha iskuulka soo wajahay waxa koow ka ahaa in fanaaniinta badankooda aysan waxba akhrin karin waxna qori karin. taas ayaa ku noqotay caqabad weyn oo iskuulkii in badan uu la shaqayn waayo. abwaanku waxa uu xaaskiisa u qaaday intay Masar ku heesa jacayl iyo xiise iyo muxibbo ka buuxo, balse intay Masar ku maqnayd oo jacaylka abwaanka uu ziyaaday darteed abwaanku waxa uu diray heesa talantaaliya kuwaasi uu ku muujinayay bohliyowga uu qaba inuu helo xaaskiisii muddada badan waxbarashada uga maqnayd. heestan ayaa tilmaamaysa macno badan oo dunida guudkeeda ahaaday. sidoo kale heestu waxa ay tilmaamaysaa miisaanka iyo macnaha jacaylku uu leeyahay iyo kala maqnaanta.